يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. هم ناصروا المختار في تبليغه فجزاهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك لنا على المحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu kusoo jirnay barnaamijkii taxanaha inoo ahaa ee aan bishaan barakaysan ee ramadaanka uga faa'iidaysanaynay inaan isku xasuusino taariikh nololeedkay lahaayeen asxaabtii nabiga calayhi salaatu wassalaam. waxaanu dhex tiimbanaynaa raggii ugu waaweynaa asxaabta markii la fiiriyo xagga iimaanka iyo xagga fadliga iyo xagga khayrka oo dhan inaan ka sheekayno. waxaynu kasoo sheekaynay abubakr sidiiq radi allahu tacaala canh, cumar iyo cuthmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhum ajmaciin. waxaynu sidoo kale biidni illaahi subxaanahu watacaala aynu diiradda saaraynaa saxaabigan aada iyo aadka u weyn ahna qofkii ugu dambeeyay xagga khulafada lambar 4 kaga jiray, ama lambarkii la dhihi karo khulafaa raashidiin waa lagu soo xiray afartoodii ayaan insha allahu tacaala ka hadlaynaa. waa cali ibn abi aalib bin cabdilmuطalib bin hashim oo aad taqaanaan ibnu cami nabi sal allau alay slam, nabigeena adeerkiisna ahaa. xaqiiqatan waa saxaabi jaliil ah, taariikhdiisuna ay aada iyo aada u mugweyn tahay. fadligiisuna waxaa la dhihi karaa waa qof dhinac walba oo laga fiiriyo fadli kale, dhinac walbood ka raadisid fadligiis waa ziyaado. haddaad dhinac ka fiirisid nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, ina adeerkii oo ahlu beytkii wey, kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala lahaa inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti wayudahirakum tadhiira. dadka saas ilahay subxana wa tacala inuu dahiro maarata ahlubeytka lagu sheegay ayuu kuwa ugu horreeyay ku jiray. haddaan dhinac kale ka fiirino, gabadhii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam aad iyo aadka u jeclaa ee faatima binti rasuulillaahi sala allahu calay wasalam ayuu qabay, oo mar allaala markuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam raba inuu meel aado uu soo marin jiray maarata cagta uu soo agmarin jiray gabadhiisa. aad buu u jeclay nabiga calayhi salaatu wasalaam faaduma ayuu qabay binti rasuulillahi sal ly slam, oo ah sayidu nisaa ilcaalamiin, caalamka o dhan maarata sayidka xagga dumarka u ah, bal iska da haddana ah sayid maaratay nisaa ahlujanna, dumarka o dhan bay sayid u tahay weeyaan. waxa uu dhalay labadii wiil xasan iyo xuseen oo nabiga ildogsi u ahaa, oo ayakuna ah sayidaad maarata ragga ama dhalinyarada ahlujannada kuwa sayidka u ah. labadaasna wuu dhalay. subxaana allahi alcadiim. waa ninkuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, ninkuu yidhi wey salawaatu ullahi wasalaamu calayh, waxaan u dhiibayaa maanta caalamka muslimiinta qof ilaahay iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin, asagana jecel ilahay rasuulkiisa. intaas marka waa hordhac iyo fadliga uu saxaabiga aan bal ka sheekeynayno. man huwa waa kee saxaabiga walaalayaal weeyaan? saxaabigan hooyadii waxaa la yidhaahdaa faatima bintu lasad binu hashim.
markii laga sheekeynayo waxaa la yidhahdaa waa qofka keliya ee maaragtay laba reer bani haashima iska dhaleen ayaa la yidhahdaa. aabihii waa taqaanaan camuhu oo nabiga adeerkii buu ahaa abu aalib oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xaqiiqatan diintatan wax weyn ilaahay baa weyne ayuu u taray. keliya waxaa ka maqnayd kalimatu tawxiid inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyo. sidoo kale waxaa lagu magacaabi jiray naanayso fara badan buu lahaa. aba camr waa la dhihi jiray, waxaa la dhihi jiray abaturaab iyo abu maaragtay sibtiyiin abu sibtiyiin waa la dhihi jiray. intaasoo dhan waxaa kulansaday saxaabiga jaliilka ah ee la yidhaahdo caliyun ama cali ibn abi aalib radia allahu tacaala canh. saxaabigan aabihii haddaan xoogaa yar isdul istaajinay walaalayaal. aabihii nebiga adeerkii buu ahaa. waxaa soo martay sanad ama waqti abaar ba-an ay jirtay, dadku ay aada iyo aada u baahdeen, waxay cunaan waayeen. ninkii caruur badan dhalana ee xaaladdu ku cakirmayso maxaa yeele wuxuu siin lahaa ay waxay noqonayaan wax aada iyo aada u adag. nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uu adeerkii arrintan ku habsatay ummadda uu la mid yahay, dareen gaaraan nabiga taabanaya calayhi salaatu wasalaam. intuu soo baxay ayuu adeerkii kale u tagay cabaas, wuxuu ku yidhi sidee bay kula muuqataa haddaynu maaragtay abu aalib aan u tagno oo aan carruurta uu maaragtay korinayo dhibka iyo dhibaatada kala kulmayna noo muuqato, haddaan carruurtii kala qaybsano ninba midku awoodo uu gacanta ku dhigo ama uu koriyo. wuxuu yidhi wallahi waa tala fiican. waa uu soo baxeen, labadu is soo raaceen. odaygii abu aalib waa loo yimid, taladii baa loo soo bandhigay. bilxaqiiqa aada buu usoo dhaweeyey. hal wiiloo yar maaragtay ayuu yidhi hal ii daayo. carruurtu waa la kala kaxaysay ka sabaatee. jacfarna maaragtay cabaas baa kaxaystay radia allahu tacala canh, dib uu ka islaami doonaay. waxaa isagana soo watay cali bin abi aalib radia allahu tacaala canh. waxaa gacanta ku dhigay oo soo koriyey. wuxuu ku koray wallahi nasiib buu lahaa. khayru khalqi illaah, ilaahay subxaanahu wa tacaala cidduu abuuray qofka ugu karaamada badnaa, ugu sharafta badnaa ayuu gacantiisa kusoo koray. odayga qisooyin badan baa laga wariyaa, hal iyo laba haddaan ka sheego. odaygu wuxuu ahaa oday karaamo iyo sharaf min ashraafi quraysh, ragga aada loo sharfo. bal wuxuu ku jiray 11 noo talada ka go-do. uu ugu horeeya abujahl. ragga markaas taladu markii loo baahdo loo maaragtay bandhigo, gorfeeyo, isla maaragtay eega dhinac walba ayuu ka mid ahaa odayga. odayga kacbadana waa lagu ixtiraami jiray. oo cabdilmutalib baa waxaa la yidhaahdaa hogaanka kacbada. reer quraysh marka laga tago reer bani haashim baa si gaar ah kacbada looga dambeyn jiray. marka furaheeda haday noqon lahayd oo maaragtay dadka waxsiintoodii waxaasoo dhan waa lagu ixtiraami jiray. marka waqtigii asxaabulfiil maaragtay ama abraha uu kusoo duulay kacbada ba waxaa la yidhahdaa geel 200 uu lahaa buu ka afduubay, ka billaqaystay oo isagu daaqan xoolo badan buu geel badan leh. abu aalib isagoo dhag la qabta lahayn buu geelii soo raadsaday. abraha ba waxaa la yidhi loo sheegay, abraha waxaa la yidhi ragga kacbada looga dambeeyo ninkaas wey. waxaa la yidhaahdaa abu aalib nin qurux badan oo haybad badan oo qof walba uu ka hebaysto u ahaa. markay wada kulmeen ayuu weli waran waa fiican oo maxaa doonaysa. wuxuu yidhi geeligaa u socdaa. intuu qoslay abraha wuxuu yidhi wallahi isma lahayn buu yidhi ninka weyn ee saan u qiimo badan ee magacaaga meel kasta gaaray, anigana aan kacbadii meeshii uu maaragtay ku cibaadaysanayeen inaan kusoo duulaan rabay. aduguna marka wuxuu yidhi kelimo taariikhda u gasha. odayga abraha wuxuu yidhi marna waxaas maad maaragtay maanta isma lahayn buu saas inaad fikirkaas qabtid. marka kelimadu taarikhda gasha maxay ahayd? wuxuu yidhi ina lilkacbati lahaa rabban sayaxmiiha. ina wuxuu yidhi kacbada aan horta geelaan halkaa kugu yimid inaan geeliga aada iga haysatid inaad ii soo celisaan rabaa buu. amaa kacbada miya kacbada waxaa iska leh rabbigaa iska leh asagaana kaa difaacan uu yidhi kaala adiga kusoo duul. waa rurtiis
حقيقة فكرة أو قبي إلهي دي أساك دفاعنا والصورة مارتي الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل شبراس إله قدرة مرحوا لصاحب كعون أنه مليه dadkaas oo dhacay xogaan dadka imaadaan cuntada siiya ama waraabiya ama aan maartay wax u baahay u qabtaa ama ilaalinteeda anu shaqo ku mali anu geelaasaan leeyahay geelayga yaan doonaya aad buu ula yaabanaa wali Ibrahim laakiin waxa la yiraahdaa markuu ka soo tagay geelis loo maartay ka soo ceshtay intuu xagga u jeestay ayuu ilaahay baryaalay markii xaaladda ku cakiranta gaalada ilaahay waa carjireen laakiin markii waxa ilaahay leeyahay markii badda iyo maartay meesha ay ku jiraan qatarta وإلهي سبحانه وتعالى أبن بحجرين أخلصوا عملك هلا إخلاصية لك ديجرين فلما نجاه من البر إذا هم يشركون لكن مركب بنانك يبر مالان ترى فروا كبح حسايو السلامتي يوحي سدح البقول بلايدي مركب أسكو حرنايم بيكو عرين مركب وضع قاسبوها وضع آدو قيمة بدن بها مركب آدو قيمة بدن حق قريش أيوها وأضيق النبي عليه الصلاة والسلام لو قعب سنجري آد لو قبق جري ومروا البو والنبي عليه الصلاة والسلام لوسو dhiiradaba ninka kaliya gaashaanku oo marba ka celiyo uu maartay loo soo mari karin ayuu ahaa haddaan qisada kale waan ka sheegay asal ka taabtana waqtiga nabi kaleey salaatu wasalaam uu ilaahay soo diray oo khayrka uu meel walba marinayay way ka daba qaateen qaarkood waxaan soo sheegnay isla adeerkiis kale abulaha wuxuu sameeyay intuu ka daba qaato ayuu lahaa warka Soomaa markuu nabiga dadka wacdi oo maartay meelaha ay teendooyinka isku imaadaan oo xajka markay imaadaan ينتو أتقوا النبي يجري من يأويني من ينصر وليعي قرقاري حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة إلا أن دين تمشي له وطلق أن قارسيه أسرنا جنا قاضني النبي يقولك مدكاس وحاسوب بندقي خير كاس يا إمارة إيه قرقاري وليعي نصراني أنا كان أبلغ قاضا جنة إلهي سبحانه وتعالى أي النبي ما عرفت دتك كما عرفت كو ما عرفت وما عرفت كعد سنة وحكدم بي ودبت تاجنا وشروداها وأنا خير قبين oo maarata habaarna adeerkii Abu Lahab mid taraahidba baa wuxuu lahaa midka kan ana adeerkiis ah walaalkay baa dhalay waa naga waashay nin waalan ka soo qaada ha qiimeynina wuxuu leeyahay iyo wuxuu ku hadlay iska warqabo madaxnimada dardarta bala wax uu nabiga istaahilay ku daba dhigi jiray tasawwur waa labo nin oo adeer u ah haddana macdaalka kanna wuu ka fiican yahay ونكشر بضيه وحال يري مركو النبي عليه الصلاة والسلام وهي أوجس عبد المطلب أي سجارة كارد الدارم وحال يري أنا أبو طالب النبي أبيهس عليه الصلاة والسلام اسكو هاي اسكو أبي هالكاس الحال حوجا وحبو كفيري ونحير نون كان دان تبو ودان كوجا أو سجارة مركو أو باقي وضيجها ووجي عبد المطلب مركا رعاية حماية مارت أدو جاره إنه أصلا يوم ayuu maartay markaas u bandhigay marka qolada Quraysheed way shireen way fadhiisteen qodob bay soo dejisteen waxay dhaheen ninka kan adeerka u tahay iyazcum sheegana nabadnimada waxaan ka rabnaa haddii uu rabo maal iyo hanti te Quraysh baa ka dhalan hanti baan leenahay aan waxa naga siino oo gacanta u galino haddii uu rabo guur iyo in gabar qurx loo guurina gabadha ugu qurxan ma Quraysh maartay u guurayna haddii uu rabo boqortooyo iyo maamul iyo maartay inuu umad hogaamiyo yuusan ugu soo gaban nabinimay waxaane si cad oo farcad imaarada farcad leh si cad oo geed lagu soo gabad lahayn ha inoogu sheego sidii aan maaragtay alla ilahay aan markaas hogaanka ugu dhiiban odayga tarada way la gudbo way la macaanaatay asoo dhagal qabta lahayn ayuu nabiyuna Muhammad alayhi salatu wasalaam yimid laakiin wallahi waa kaafi kala dheeri meesha ku xisaabtamayaan iyo nabiga meesha ku xisaabtamaya الله إليه كلا فجأة نبغى حساب تمايا محوك حساب تمايا إنقاذ البشرية دتك إني كبد بعدان دتك ودن إن نار كبد بعدان جنة جلان عذاب إلهي كبد بعدان النبي يقول ولا أوحوها متواصل الأحزان مد ملوك دول صارنتها قضية ويمت قضية عرنت من النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام محيري لو وضع هذه اللي صار هذا المرتين كسوق بعض أهل السيرة أي وحدهان وحي مرتي يرى ضعنيان وما ضعيف إحنا عصدهان لكن كلمة كشامل ويان وحيري واللي هذا هدي لو وضع الشمس على يميني والقمر على يساري على أن أترك هذا الأمر لن أتركه إلهي ما كنا نرتوير هدي قرح ذا قعنتي مثل اليسار تنبيذ إحنا مرضيح ليسار إن أرجع كتنازله والله بانا كتنازل إلا إلهي سبحانه وتعالى أنك لحكمه
علشان وحباشا كم موقنيسو إنه يهي موقف النبي محمد عليه الصلاة والسلام كوين وقرح أنت سوق هذا مصر قال كنا كمر دعانه حتى أنت ساران عندي نعك ساران قمرك كمر دعان من أودان إن ما رتحوا النبي عليه الصلاة والسلام كمان لا أمانة موقف كيجا ما هي متكلبت أي النبي قد صلوات الله وسلامه عليه أضيق مركو أركي عقيدة الراسخة عقيدة سجن مارتي سي أسويه بورها ودقيهين جبال الراسيات سي بورها أسويهين النبي أسويه مركو أركي يحير أدر يدقيسو اذهب وقل ما شئت بح أو تك واحد دون كله والله إن كوجع عن قلين إلهي بان كل أرت كوجع عن قل ماي أدر حربات هاي وحاربتك هذا شك كي كان الله حكوا له هاوي مركو ما تسأكل دويهين يقيمة يكليه ورا ريال بالفيرية مركا ننكاس على لوي هذا وحوتي ننكاس أن كشكينا ما صحابي قدلوا كشكينا به ننكابوها حتى الدين تحطها كده أصوات قاله دين إلهي سبحانه وتعالى دفاعي وحبضنا ما رت أقبت ويا ولا لا إن أمير المؤمنين نتكلم لقوا بقى أيوة هذا اللي يري عمر خط علي بن أبي طالب كلمة أمير المؤمنين وقت عمر بحذا اللي يري لكن سيكون بحذا أي حتى وحيل هذا قصير كومن وحاجة تاني يري أيضا لقوا رسيه أو بكر روحوها خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم خليفة الرسول أيضا لليه هذا عثمان محاسين هنا نسكوه هي نبى يميت نعم مصر بكيم ذا لهذا مركز سيري أين أمير المؤمنين ما يقول أين أميركم أين أمير المؤمنين إنه يري أين أميركم شك بقى يجر سك السبهاته كلمة دي حذيفة إنه فليا أيها مغلي أصغر أهل الشروط كل شكسين خليفة رسول الله أن كعل أجلس ولا جاه بوي محاسب منا أيوه حيري يا عمر بن الخطاب ويمت أنت أميرنا أما أنت أمير المؤمنين أنكم وحنا راعي أنت أقولنا أمير كبات هاي أنك أنا مؤمنين تكون راعي سعنها هوي ساعة مركب عمر الخطاب وقعت كلمة هاي أمير المؤمنين وأدي الله ولول سنة ما يحلو بحيه مركب عمر أمير المؤمنين أيانا به جري علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وحيالها فضل قسام مركب أنك شكينا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولا يا النبي وحير صلوات الله وسلامه عليه من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله سبحان الله قفك علي جعل هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وحير قفك جعل هذا أنا هو جعل هذا قفك أنا جعل هذا أنا إلهي هو جعل سبحانه وتعالى لماذا أنوي سأوليه واحد أكتين هذا الدب إذن علي حغاير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسحابي أبوه الرئي نفتي سنة محمد أهبي أرجع فيري وسحابي أبوه الرئي نفتي سأهبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واحد جلس على مركب قريش تشتي شروادياش أنا اسكت جين لو تشتي النبي عليه الصلاة والسلام إلا قد تخلصوا للدلو لقى قبتي مارتي اسوير كسال الله قبتي حداب كلو سميي مارتي نول بابا قبيل البنمكي أبوه هل اللي سنام أما أبوه سيفت مع السيف عن باشا قرطة أقول فأنا قفكم كل دفته أنا كسر كعين رجع أتوبرنا مركي أصوب بنبحين النبي عليه الصلاة والسلام إني الدلان بالله عليك نلي يرمات ولا توجنيه وطيرك التوجشة إلا جيل رم كور هديك إلى طيرك التوجشة هذه وهذه سكيني قفك سكوب اللي هذا النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بقوة حيوضي جبريل بوسو مريء نبي المشكلة بحياة الأمر مركب نبي مركب سي وحو استعمالي حالة كل سنته علي وير السرير ماشي عندي في ساحو قويس عقارنان وحير اسكدت ماشي النبي عليه الصلاة والسلام يا مكان كي بوزيشن كي إسلاهايين وجوجا أيو النبي قديم نفتي سيبو كأمر سيفتي مدح لو غرفة كرا رجنا بقول ديارسن إن مدح هالمرة سكون نول بابا هالمرة وصمن اللي قول نفطه سيفتاس قف صمين لها أما كل ديران والله ما جرو إلا قف إلهي سبحانه وتعالى قلبي يسا ويهي مطمئن بالإيمان قف إيمان لقوا عفي أما إيمان لقبحي قلبي يسا أي أساس من كرا علي وحوها نيك السلاسة النبي عليه الصلاة والسلام مركب وكيف لا سيما يكون تهوي إنه النبي يراه قفك جعل هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنا أقول جعل هذا ويستاهلاوي علي بن طالب رضي الله تعالى عنه خيبر وأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لها ما أنت وحنودي بيا راية مسلمين تا رجلا يفتح الله على يديه أم قف إلهي سبحانه وتعالى قعميسة كفر إلهنا وجعل يهي
ilaahayna uu jecel yahay rasuulkiisana maaragtay asagana uu jecel yihiin asagana uu jecel yahay ilaahay uu jecel yahay rasuulka ilaahayna ay maaragtay uu jecel yahay waa maalinka uu yidhi cumar ibn khataab radiyallahu ta'ala an cumar weligii nin wuxuu ilaahay jecel yahay asaga xitaa weligii wuxuu yidhi madaxtinimo ma damcin maanta baasha isku layno oo lacagta ku bixino oo qof walba uu maskaxdiisa iyo maankiisaba geliyay sidoo uu ma aragtay meesha u gaari lahaa ragga hore kuma dhiiran jirin bal wuxuu ogaayeen in maalinta qiyaamaha waqifuhum innahum mas'uuluun ay ka horeyso oo qof walba la xisaabinay maalinka aan maqluu yiri nabi calayhi salaatu wasalaam berri waxaa u dhiibaya ama calanka loo dhiibi doonaa qof ilaahay iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin asagana jecel ilaahay rasuulkiisa wuxuu yiri kalimaas ay qaaday marka salaas wax laga baxay waa is dheeray nabiga istusay madaxa saarada korma suuq qaada ala qal isha ku dhufto isha raacawil isha meeshii adaba oo leexda meeshii adaba oo leexda anigoo doonay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yiraahdo umar oo istaag maalinkaas wuxuu yiri andam yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam yiri aaway ali ibn talib yiri markaas yiri ya rasuulallah daaf ay ma martay indaha ayuu ka yiri xanuusay haliri hal uu yaro nabiga markii ku tufay ali kale uu dhiyo ninkaas waa ninkii ay liiri nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay saddex qof jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala way u helowdaa allahu akbar jannada a u helow waa show waa raqba iyo show iyo maaragta jacayl bay u qaadaa jannadii aan sugala oo waxaa helow waxaan ku turjumi karnaa waxaad aad u jeceshahay aad u jeceshahay marka ay ku hor yaalaan oo aad helowad u qaasa inaa markiiba aad wixii maaragta afka la gashay ama cuntid jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala saddex qof way u helowdaa ilahu kuwaas nagu dar waxaa weeye kow cali ibn talib radi allahu tacala canhu iyo camaar iyo bilaal subxaana allahi alcadiim ya saddexdaba xadiis waxaan ku sheegnaa saddex kelimo ninkan waa asaga nabiga calayhi salaatu wasalaam uu lahaa markuu maatu yidhi abubakar fi ljanna cuthmaan fi ljanna caliyun maaragtay camru fi ljanna cuthmaan fi ljanna iyo caliyun fi ljanna ayakoo adduunka jooga nabiga calayhi salatu wasalaam ugu bashaariyay camaarna waa asaga lahaa fasbiru ala yaasir fa ina wacidukum ljanna nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwa lahaa buu ka mid ahaa bilaalna waa asaga nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi bilaalow shanqartaada ama kabada shanqartooda ka dhex maqla jannada maxaa samaysaa waa ragga ayagoo adduunka jooga jannada saas loogu bishaaray wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala afar ayuu ifaray inaan jeclaado ilaahayna uu jecel yahay afar buu rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ifaray inaan jeclaado ilaahayna wuu jecel yahay saxaabatu lkiraam radia allahu tacala canhum waxay ahaayeen kuwa nabiga markiiba su-aasha ku boobo marka janno lasoo sheego markii janno la sheegaba su-aashooda siday qofkaas uu janno ku helay iyo raggaas inay ogaadaan dadka ka dhex bartaan ayay ku dadaali jireen isla markiiba yaa rasuul allah noo magacdhow waxaaran arag inaan maqalno nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi caliyun minhum cali baa ka mid u yidhi iyo abudar iyo miqdaad iyo salmaan afartaba nabiga saas uu sheegay billahi calaykum fiiri ayku adduunka joogo ay jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo khayr oo dhan ay maaragtay mutaysteen maxay ku mutaysteen way dadaaleen wey cali wuxuu ahaa caabid wallahi ilahay caabudo markii aan kuniyadiisa sheegay waxaan rabnaa kadaalka raacso sifooyin badan sifooyin kale wax ka mid ahaan yidhi ama marka la tilmaamayo cali nin wuxuu ahaa xoog badan aad u xoog leh garkiisu intaa dhan yahay aad gar u weyn buu ahaa baa garkiisu weynaa xataa murqihiisana nin aad maata murqihiisa iyo wixiisa ay aad u weyn buu ahaa mana dheerayn aad uma dheerayn meel gaabana ma jiro lakin dhinac dheerarka lagu tirinaya marka cali bin abi talib radiyallahu ta'ala habeenkii xaaliya subxaana allahi alcadiim habeenkii intuu qaybaha dambe soo kaco ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala la shakaysan jiray dadka wanaagsan saalixiinta waxaa lagu yaqaano wey wallahi naftayda iyo tiirna waxaan farayaa inaan habeenkii qaybaha dambe ilaahay subxaana wa tacaala usoo kacno waqtiyo ay guryaha dansan yihiin waqtiyo ilahay subxana dadka maarata qaarkood ay qaafilin ka yihiin ilaahay subxaana wa tacaala kayfiyada iyo systemka uu kusoo degay asaga garanaya qaabka u yimaadeen maaragtay ilahay inuu samaa dunya intuu imaado uu leeyay war maydin ku jiraa mid su-aal qabo mid maanta baahan ragga waxaa weye ilaahay subxaana wa tacaala shaxaado ahaa ragga ilaahay shaxaado ragga ilahay ku hoos ooyo ragga ilaa seen u seexdaa indhahayga say u seexdaan ilaahaw samaa dunya joogo سي أوجيفا ودمارت دارك يقدرتا إله كولها وي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون جركو دكود دي إنس يجيفان رقاصو كم ولا ليا والله العظيم عابد بوها إله آدو عابد هبينك بحالته قيمها دم صوكع
ayuu ilaahay ku hor ooyi jiray markaasuu waxaa garka saa u jafaalan jiray addunyaa gurri hayri addunyaa gurri hayri adduunyoy aniha idagana kuwa kala maartay qof kale ama wax kala raaso aniha idagin taas uu dhijir asoo adduunku joogana janna lagu bishaaro leeyahay maca dalika aniga iyo inta la midka ah janna iska daay wax badan ayna ogeyn oo laga yaabo in dambigooda meel ka daadsan yahay ayaa haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala xiriirka aan la leena iska hiriyo walaalayaal maxaa loo baahan yahay in ilaahay u cararno in ilaahay u dhawaano inaan noqono dadkaas wanaagsan meeshay mareen wallahi wadaan nooga sugnaata waxaan oga sheekaynaa horta sheekada inaan ka sheekeyno ama taariikhda ka sheekeyno maxay tahay ujeedka iyo maaragtay dulucda loo socdo maxay tahay inaan ku dayano maxaa yeelay ma ahayn nebi ma ahayn ambiye ma ahayn rasuul ma ahayn dadna lamid ahaayeen bal qaarkood asnaam soo caabuday waxaa la yidhahdaa cali ibn طayib radi allahu tacala canhu fakullamaa mar allaale marka uu weysaysanayo yaxmara wejigiisaa gudun jira fakullamaa mar kasta ee uu maaragtay damco inuu weysaystaba wejigiisaa gudun jiray waa la weydiiyey yaa amiir almu'miniin maxay ku dhacdaa la yidhi markastood weysaysanaysa inuu wejigaa isbedelo wuxuu yidhi mada aad garanaysaan buu yidhi qofka hor istaagay war ma taqaanaan buu yidhi qofkan hor istaagayo qofkan hor leanna qofka markuu tukanayo yunaaji rabbiisu la hadlayaa markuu weysaystaba wejigiisaa isbedeli jiray waxaa laga yaabaa kuwa badan iimaankooda daciif yahay asagoo salaada u taagan inuu isku xoqoqdo barqaar baa la sheegaya taleefonka ku soo dhac inuu fiiriyo koolkan waa kee maxamed baa maxasan ba haa usaylant markaas uu ku bilaabo qaar baa la sheegaya ayagoo salaada ku jiro inay saa u fiiriyaan uu yidhahdo waa kugu soo celinaya iimaan xumada meesha ka dhacda maarata la sheegay kamid tahay waxaa keenaya maanta qalbiganagi waxaa laga yaabaa haddii qofka shaqo yar ee uu hayo inuusan xaggana fiirin haddii camera yar saa u saaran tahay uu aada u khalkhalo وكيف رب العالمين مركز ربي هرتاجنتاي وترى الحمد لله رب العالمين وإله حمدني عبدي أدونك وإما هذه إلا سجرت إياك نعبد وإياك نستعين وإلهي هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل بولا ليال هل كان سبحانه كل قادرنا إيمانك إيمانة ماشى يمجأ لها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على عادل بوها عادل وإلهي سبحانه وتعالى كحرم بوها هل قصة عدل جيسة إيمان سيدا وقف ونور صنوها أو زهدي بدن وحالي درع ولها أيها أواي هل قصة كباحي حكم كان أساء أصرين مالك الدموني يهودية بو حكو أرك درعيس بقال أسمه مرين نيكي وكدب قيري وكدب نواقي مركز ونيه درعا ودرعي رالي هوي درعنا أسكاله كما أقان نجت وحير هذا يساعد محكمة النجيه أو كلا بحنا ومدحويني عالم ومع مركز ماشي أسري عند كما سريسه لكن حكمك يا إلهي سبحانه وتعالى عدالة دي أي يكون عسية إن الحكم إلا لله إنه حكمك إلهي يكون عسية محكمة دي بقى لو ديمت قاضي ما سوي استاج كلمات حاجة لهور مريا لكن الله أعلم سحالي ده إنه قاضي مركز ماشي ويري ورنيك هبل ويهودي ولا هذا حيري هيا محل شيء يهودي بقى هذلي برجع يقول يا أمير المؤمنين أدينا هذا عمر علي وسبدالي حيري عدالة ده حكيت بيري صار كان أقول له واقع مقعيس أنا علي إنه بيري هدي من أمير المؤمنين وحيري محكمة ده صارنا هاي نبى نسينا مقعي قاسي الدرجة ده ويري حق نقبل نبى نسينا أصلا مقعيس أوير أنا مقعي أوير بالله عليكم ما أنت ما لقاه على أساس بل مستر بريسيدنسي iyo waxdu xita xildhibaan inta aan ciidan la marin ama sheekh la soo marin ama fulaan lagu magacaabin ma jeclo asaga wuxuu kamid ah ragii qaatay man tawaada'a lillahi rafa'ahu Allah man tawaada'a lillahi qofka ilaahi dartiis kullu dhiga ilaahi korbu qaada fil mala'il ala laga xusaa ilaahi xaqiisa laga soo dhaweeyaa ninkii yahuudiga marka wuxuu ku andacooday dira waxa la wixii uu sheegtay asaga leeyahay علي بأسنا أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أيا الله ورثتي وحيري أنا أسكله يا مرقاتك يا بالي ويلكي لأنه وحيري أنا وما أنت مرقات عادي قبتي وحكوك أما ومتكاد الشيء أما جوانا قبتي أما عررت أما أنت هلك جوح عند دولة جوري كله جوت بقى كاور قبت عدك شاتها مرة صقطتي ماشي كصقط عد أجمله مركز سيد عادي قفل بقول وليه لها يوري ويلكي يا أوك مركز يوري wiilkaaga markhaati kuma noqon waa uun qayb kaama jirkaaga xataa xaaliya inuu
uu yiri maaragtay waa sayid labadeeda wiil waa maaragtay labada wiil ee hogaamiyaha waa ragga dhalinyarada ee shabaabka ee rajaanada marka fadligoodu sheegay si kastaba ahaatee ninkii yahuudiga xali adaa iskale dirac xagga iska baxa yahuudiga markuu dhowr tilaabo qaado soo jeestay subxaan allah alcadiim bilcadaalada fiiri wallaahi buu yidhi ilahay baan ku dhaartee waxaad nagu xukumaysaan ma ahuu yidhi fikirkiina ma ahu waxaan ka soo baxday bal waa wax munazalun min asamaa wax samada kasoo degu yidhi lianna maanta waxaan is haynaa waa madaxweynihii muslimiinta waxaana kala bixiyey kitaabka ilahi subxaana wa tacaala ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxameda rasuulullah meeshow ninku islaam mar maxay cadaalada fiiri maanta wadamada gaalada billahi calaykum wadamada gaalada eed arkaysaan ee maanta muslimiinta ay joogaan waxay ku kala badbaadeen waa cadliga cadaalada wadamada muslimiinta oo maanta muslimiinta iyo khayrka lagu tumayana cadliga cadaalada waxaa laga yaabaa mid maaragtay madow iyo mid asagana iska cad hadday soo garabsanaan weliba carab ama tilaad ama wadan kale kasoo jeedo in uusan garsoorka uu rabo uusan helin waxaa laga yaabaana wadamada gaalada oo ilaahay kufriga iyo maaragtay shayaadiinta dhan ay ku badnaayeen inay ilaahay ku badbaadiy cadliga iyo cadaalada darta isticmaaleen oo laga yaabo inaad maxkamada fuushid nin wasiir ah oo laga yaabo inaad maxkamada fuushid nin xildhibaan ah oo laga yaabo inaad maxkamada fuushid ninka magaalada ugu maaragtay gudoomiyaha maantana waxaa laga yaabaa tuulaa kasoo jeedid haddaad isqabataan gudoomiyaha magaalada oo tiraad waa ay dulmiyey in xabsiga lagu taxaabo wax jira way walaalayaal saasay marka cadliga cadaalada uu ahaa cumar bin khataab cali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu qof ugu dheerayo waxaana dhihi karaa wallahi alcadiim waxaan dhihi karaa maskaxdeeda anoo kaashanayo maanta ummadda soomaaliyeed meeshay ka baaba'day meeshay ka dhimatay waa cadaaladda haddii cadaaladaas la dhisi lahaa ama lagu dadaali lahaa ilaahay subxaana wa tacala ummaddan faraj buu furi lahaa tusaale haddaa soo qaato hadda dalka maraykanka maxaad mudda xadiiska nabiga inay saameyn ku leedahay idin xayeysiin maayo wadamo gaalo qaari baa laga markiiba inay lambaras u dhufsadaan dalka maraykanka madaxweynaha maanta waa obama tusaalaha cad wey waa nin afrikaan ah asalkiisana kasoo jeedo dalka kenya soo ma saxiix wain ta'amara hadduu idin amrina wuxuu yidhi cabdun xabashiyun war hadduu mid madow oo timo adag daacada iyo hogaanka raaca samcan wadaacan dhah maanta gaaladii maraykanka wadamo isku taga iska ahaadaane haddana nimankii caddaanka ahaa nin afrikaan oo madow ayaa maanta madaxweyne waa samcan wadaacan waa leeyahy haadaa arrinka laga reebay muslimiinta kaas buu ahaa arrinka laga reebay muslimiinta saas buu ahaa bal maanta waxaa laga yaaba wiil soomaaliyeed oo ilaahay ku xiran oo laga yaabo reer qansax ah ama reer qurac inay dhibic dhad intii la yidhaahdo raggaas kasoo jeedaa oona hogaanka loo dhiibin wali annakoo ree maaragtay reer qansaxa oo kuwa maaragtay ugu laandheeraan nahay laakiin waxaad ogaataa maaragtay wallahi maalinta qiyaamaha nasabna ma jiro falaa ansaaba baynahum yawmaidin walaa yatasa'aluun ma kaa dambayso maanu nasab wax ku tarin qofki uu nasabkiisa dib maaragtay camalkiisa hordhigi waayo nasabkiisa nabi wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasala caleyh ma hormariyo marka cadliga iyo cadaalada ayadana ku daalno haddaan usoo dhaco walaalayaal saxaabigan jaliilka ah asaga iyo xaaskiisa nabi aad buu jeclaa labadaba wuu jeclaa bal nabi wuxuu samayn jiray wuu tabantaabin jiray xaaladooda ka warqab jiray habeenada ka mid maalin ka mid soo maray habeen buu soo maray markaas wuxuu ku yidhi alaa tusalliyaan miyaadan tukanin wuxuu raa inuu ku dirqiya khayrka miyaadan tukanin cali marka kelima kasoo fakatay wuxuu yidhi naftanada gacanta ilahay bay ku jirtaa markaan doonno ayaan kacaynaa buu yidhi markaasuu haddana asagas canaanta wuxuu yidhi ina kaana alinsaanu jadala hallo insaanku dood badana wey nabiga khayr baa kuu sheegay bal ma waaya tirahi waxaa la sheegaa marka jacaylku nabigu u qabay calayhi salaatu wasalaam iyo soo uga warqabi jiray waa kelimadan abu turaab se ugu baxday maalin wala ka mid nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigii gabadhiisii u yimid faaduma ahaa markaasuu wuxuu arkay faaduma oo keligeeda oo guriga joogto iyo ciyaalkeedii markaas wuxuu ku yidhi aw carruurta maarata cali aw markaas yaa rasuul allah maanta cali waan is yara qabanay xoogaa yar wuuna iga carooday marka mahajir markaasuu yidhi xasan iyo xuseen buu yidhi hadda hal ii keeno ii raadiye way ordeen meelahay ka firfiriyeen aabahood fadhi kudirka ma aado aabahood meelaha ummadda lagu xanta ma aado hadduu guriga laga waayo ama uu shaqay meel kale u jirin guriga ilaahay buu cararaa meesha keliya waa tusaalaan ka bixinaya waxaad leedahay hebel xaggee laga helaa hebel marash ku joogaa hebel xaggee laga helaa hebel waxaa laga helaa meesha ciyaarta lagu daawado qof walbaba meeshu u badan yahay iyo meesha laga helo
hadda way cadda waxaa moodaa inta aakhira la gaaray in la kala baxay fariiqun fil janna iyo fariiqun fi saciir dadkii xumaanta iyo khayrka dadka xumaanta badana inay meelaha sharta u badan yihiin shalamada hebel laga helaa hebelku meesha bulul lagu daawaday qurunka iyo waxaasoo dhan baa u badan yahay hebel wuxuu u badan yahay meesha markaan leeyahay bulul qurunka qolada inay kacala laga yaabo bulul ma xaraam ba xalaal ba bulul ma xalaal ma saxan in mawduuca sadda ka hadli maayo kuma jiro laakiin waxaan ka mowqifka u wataa qof walba meesha laga helo ayuu aakhira laga heli doonaa saxaabigan jaliilka ah haddii marka adi lagaa helo andib laabtee haddii ada lagaa dhexelo meesha arsenal iyo manchester lagu taageero masaajidkana salaadoo la aqimay la adaamay halkaas fadhiidid dee baabkaaga baxar buxur waa ilaah ku maqan wey marka fatuubu ila allahi baan leeyahay taasna marka walaalayaal cali bin abi talib radi allahu tacaala can isla markiiba waxay ka soo heleen labadii wiil asagoo masaajidka jiifo yaa rasuul allah awogood bay kusoo carreen waxay dhaheen wuxuu jiifaa maxaan idhahdaa masaajidka waa uu soo baxay markaasuu asagoo wuxuu u yimid iska seexday oo gacantiisa barkaday maradina xoogaa yar ay ka yaraa lugaa nacas xoogaa yar ka yara faydan tahay intuu nabiga soo ordo salawaatu llahi wasalamu aleyh bal nabiga raxmad safiiri waxaa lihi ciidiisa uga jajaf gabadhiisa u qabaa xidid bay yihiin waa inaad arkiis waa aad buu jecel yahay intuu soo waxaa lihi ciidiisa uga jaf qum yaa abatura maalinkaas ku dhigtay ciidii uu ka jafay mise markuu indhaha kala qaaday rasuulka ilaahi khayru khalqillaah ayaa dur taagan markaas soo kiciyey bal fiiri waxaa laga yaabaa gabadha ama xaaskaaga iyo markay isqabataan maaragtay naagta gabadha ninkeeda markay isqabtaan in balaayo kale tolkiiba ay sii buubuuriyaan oo sii kala firdhiyaan ilaa dad wanaagsan maahe bal nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhiisii markii way cabasho sheegatay wiilkii buu sasabayaa uu weliba la kaftamayaa uu soo jiidanayaa meeshii uu nabiga calayhi salaam kula hadlay gurigiisana markii uu kusoo laabtay cali ibn abi talib radi allahu tacala can buuqina meeshii uu ku dhammaaday taas waa fadliga iyo xaaladii qusaysay cali ibn talib nin geesana waa geesi oo waxaa la yidhaha mar ka mid ah nin bay isku fakadeenoo waabsaday oo iska dhigay qatar markaas wuxuu ku yidhi samatnii ummi hooyadii wax ugu macaaday xaydar waxaa li markuu yaraa hooyadii xaydar kelimada la yihahdo waa libaax baatay dhihi jirta marka ninka noocaasu ahaa waqtiga khilaafaysa marka loo leeyahay cali bin abi talib radi allahu tacala can waxaad ogsoon tihiin waxa uu la kulmay dhiig daatay oo faraha lagula jiro markaas inuu haddana hogaan gacanta ku dhigo nimankii fidnawadayaasha ahaa ee khawaarijta ahaa ee dhibka badnaa ee ilaahay subxana wa tacala ka fogaaday ee ummadda ku dilay kitaabka ilahay ayaga ugu soo gabanayo sifaadkoodana aadkii u xumaayeen ayaa cali bin abi talib waqtigaas uu joogay uu la soo kulmay oo waa nimankii dilay cuthmaan bin cafaan radi allahu tacala canhu markii cuthmaan la dilay magaalada waxaa gacanta ku hayay nimankii ahlufitanka la yidhaahdo ama khawaarijta waxaa la sheegaa inay markiiba kusoo carareen sacad ibn abi waqaas inay kusoo carareen ay dhaheen hogaanka ku dhiibaynaa wiil subxaana allah macali joogo eana ku dhiiba maya iga taga marka muhaajiriintii ansaartii waxay istuseen inay u degdegaan inay cali doortaan radia allahu tacala canhu cali wuu ka diidaa layidhi aad buu uga diiday ma rabin inuu xukun iyo waxaas qabto way ku qasbeen baa layidhi marka aad bay ugu qasbeen oo anta ibni cami nabi sal slam nabigan adeerkiis baa tahay nabiga adigoo adoo joogo adoo nool buu dadku jannada ugu bashaaraya ka mid tahay aad ba waxyaala fadaailshiisa ee khayrkiisa la sheegay markuu dhinacu la fiiriyey isagoo weliba aad uga xun ayuu waa yidhi haye haddaa dooranaysaan haddee nagayru masaajidka masaajidka mubaayacada ay ugala gashaan meeshii baa lagula mubaayacooday dadkii ahlu xalli walcaqdi ahaa baa markaas ku wada yimid waxay hogaankii u dhiibeen cali bin abi talib radi allahu tacala canhu cali markii uu hogaankii qaatay waxaa la sheegay marka qisa meeshaan ka soo baxday waxaa markii walaalayaal meeshaa sii muuqday dhiiggii saxaabigii weynaa dinnuurayn saxaabigii labada nuur saaxiibka ahaa dhiiggiisa raggii dilay ayaa ciidanka ka mid ah markaas ciidanka cali oo cali wuxuu sameeyey markiiba dee markuu hogaanka qabtay wuxuu isku dayay inuu nimankii xoog maadaama ayaka ay wadanka gacanta ku dhigeen ee xooggiisa hayaan isagana uu madaxweyne yahay inuu soo dumo uu qalbigoodii marka qaladka ay galaan uu ka saxo fikri wuxuu waday dee saliima markaas uu arkay inuu khayr yahay laakiin dee dib bay ka halaabi doontaa cuthmaan ibn cafaan dhiiggiisa marka muuqdo oo muslimiintii oo dhan dhibayo weliba awlaa cali baa ugu horreeyay radi allahu tacala canhu aad ba uga xumaa wallahi si xun xataa caruurtiisa wuxuu ku yidhi intuu xamadka cali oo jooga cuthmaan oo jooga agtiin lagu dilay iyo hadalla noocaasaa laga hayaa amiir almuminiin radi allahu tacala canhu waxaa layahay marka
caaisha radiallahu tacala canha markii uu cuthmaan dhimanayay way soo cumraysanaysay halkaas iyo makay ku maqnayd ayadoo soo socoto oo madiina usoo socoto baa dhexda ayadoo safar ku jirta ayaa warka soo gaaray oo la yidhi cuthmaan baa dhintay way dhaxda hoggaankeeni waxaa lagu wareejiyay cali markiiba shaydaanka dadka waxa u sawiraya wax kale maaragtay iyo xoogaa inuu qalad soo baxo caaisha waxaa isla markii way laabatay radiallahu tacala canha waxayna ku laabatay magaalada maka markay ku laabatana kasii baxda halkaas iyo basra ayay aaday isla markiiba rag saxaabada ka mid raggii saxaabada uga weynaa oo talxa iyo zubayr macwaam ragga casharta bashiir ragga dee xoogga lahaabaa naftirkooda dareen baa taabtay umuna caaisha la saftay way soo baxeen waxay aadeen ayakana magaalada basra isku wada yimid isku aruursaday qaar waxaa la sheegay marka la iska wada raacsan ka sabaatay adu basra la wada tagay markii basra la wada yimid cali bin abi talib radiallahu tacala canhu wuxuu ka walwalay umahaatu nabi qofkii ugu weynayd oo maarata waxaa ka wada qofkii ka mid ah umahaatu nabi sal ly slam oo caaisho ahayd inay ka maqan tahay golihiisa khayrka iyo wanaagga iyo meesha maanta asaga loo dhiibay wuu baxay asagoo ciidan iyo dad wato ka daba tegay ujeedkiisana wuxuu ahaa ujeedkiisa cali xumaan ma ahayn inuu soo celiyo maskaxdoodana ka dhaadhiciyo inuu waxaa jiro markay isku imaadeen waa la qabsaday cali bin abi talib radiallahu tacala waxaa la yidhi nimankii dilay cuthmaan bin cafaan ayaa maanta ciidan ku ah nimankii tiirka toogashada keen oo hala dilo oo maaragta cali wuxuu yidhi war hadda annaka xukunka qabanay hadda ani wax la wareegay muddo kooban baan hayaa dadku aan hasdhex galo oo raggan waa la soo qaban doonaa bal hadda aan taas ku bilaabine talase u kala horeyso aan tala hore aan ku bilowno bal dadka inaan qulubtoodii iyo inta marka maaragtay la xukumi karo xukunkanana hafido kole ijtihaad bay ahayd oo cali markaa u muuqday ciidan laba ciidan oo sar fadhiya ciidanka cali iyo ciidanka markaas ay wataan xoogaa koox saxaabay wataan zubayr bin cawaam iyo talxa iyo caaisha radiallahu tacala waxay ilaalinayaan umuna caaisha radiallahu tacala canha nimankii khawaarijta marka waa fidnawadayaal waxay ku dhex jireen ciidanka cali intii dooda socoto la sheekaysanaya dooda munaaqashada socotay ayay waxay bilaabeen seefta way ayka khayr doon ma ah saxaabada kale ku bilaabeen saxaabadu seefta dhaas waa la soo cararay nabiga waxay kusoo carareen baa cali markaasay dhaheen yaa amiir almu'miniin ayakaan ugu bilaab adigu dee ayakaan ugu bilaabay seef markaa isqabato ma ayakaan ugu bilaabay kuwaana bilaabay iyo kuwaana bilaaba taagno xaggii saxaabada ridwaanullahi calayhim kuwa joogay isla marka isweer waxay ka qabteen umuna caaisha meeshay joogtay oo waqacadana waxaa waqacatul-jamal waa lagu magacaabaa way kusoo duuleen kuwaana ka awood badnaa oo cali watay radiallahu tacala canhu meeshii waxaa la yidhi boqoraha loo jaray hashii umuna caaisha ay wadatay boqoraha loo jaray saxaabadana markaas xaqiiqatan waxay ahayd waaqaca aad iyo aad maarata u naxdin leh oo waxaa ku dhintay subxaana allahi alcadiim raggii saxaabada ugu weynaa talxa ayaa ku dhintay weliba markii khawaarijtaa dilay zubayr bin cawaam radiallahu tacala canhu iyo waxaa la yidhi waxaa wada kulmay cali bin abi talib cali marka xadiis buu xasuusiyey wuu ku yidhi ani adiga isqaban doonaa nabigana wuu ii sheegay xadiiskiina wuu yaqaanaa xadiis waa la isla wada yaqaanaa zubayr bin cawaam markuu xadiiska maqlay wuu cabsaday wuu ka carray meesha wuu iska tegay uu tagay uu sii socdo nimankii khawaarijta ahaa oo fidnawadayaasha ahaa mid ka mid a ka daba tegay mid hoogay zubayr bin cawaam oo socdo madax ka jaray zubayr bin cawaam ninkaasaa dilay ninkaan qabaha ah saxaabadun iyo ragga markaas duulaanka garab taagnaa cali bin abi talib radiallahu tacala canhu isla markiiba waxay soo badbaadiyeen ay soo keeneen umuna caaisha radiallahu taala ayagoo ku wado bahalkii ay ku dhex jirtay satuuqa weynaa waxaa loo keenay amiir muminiin oo cali bin abi talib radiallahu tacala canhu isla markii walaalkeeda cabdiraxmaan buu amray in maarata lagu daro iyo ciidan waxaa lagu soo celiyay magaalada madiina dhinaca kale iyo shaam ayadana waxaa ka taliya mucaawiya oo asana caraysan oo leh aniga ayaa dhiigga cuthmaan anigaa leh oo qaraabay ahaayeen ibn umayana isku ahaayeen amiir muminiin markaadana wuxuu isku dayay inuu la shakeeyo ama mufaawaad la sameeyo wada hadal mucaawiya uu yidhahdo mucaawiyow waxaad og tahay inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam maaragtay waxaan ahaa fadligiisa uga sheekeeyey mucaawiyana sidoo kale waa is waraystay mucaawiya waxay kaga dhegtay waxaa lihi mucaawiya horta waxaa lihi ma diidanayn mucaawiya ma diidanayn xukunka inuu hayo ama khilaafada maarata inuu gacanta ku hayo hogaanka muslimiinta inuu cali hayo dood kama qabin shakina kagama jirin xaasha wakalilah bal doodda waxay ahayd raggii dilay ijtihaadaad yar lasko raggii dilay
Cuthmaan bin Affan ciidankaada ka mid yihiin ka soo saar iyo dee hadda kuma habboone u kaadiya baa la isku hay aduu sheekada waa xumaatay Mucaawiya ciidankiisii iyo ciidankii cali bin abi taalib radiyallahu ta'ala anhu gacanta iskula tagay waxayna ahayd macrako ama dagaal la yiraahdo safiin baa la yiraahdaa waxayna dhacday hijrada 37 markay ahayd waqacatul jabal waxay dhacday hijrada markay ahayd 36 si kastaba ha ahaatee gacanta iskula tagay waliba dagaalka muddo socdaalay markii dambe waa laga awood badiyay ciidankii Mucaawiya meel taag oo sare oo dalcada ay u carreen marka Amr ibn Aas radiyallahu ta'ala anhu danin aftahan ahaa daninkii markii hore markii ardu xawaasha saxaabada aadayeen dhinaca gaala ka soo jeeday ayuu ahaa laakiin islaamka qaatay baa wuxuu soo jeeday tala ah kitaabka quraanka hal la qaado hal laga hortago wallahi waan hubaa yiri anaka quraanka wadana hadaa ka hortagan cali inuu xishoonayo quraanka ugu qadarinayo aw si kastaba ahaatee si fikirka ay ka qabeen cali waa uu ahaa waxaa dhacday markii dambe in la yiraahdo isku soo dhawaano oo hal la heshiiyo dhiigga muslimiinta meesha ku daadanin markii dambe waxaa la yiri dhinaca Mucaawiya ka socday Amr ibn Aas radiyallahu ta'ala anhu dhinaca Uthman Ali ibn Talib radiyallahu ta'ala anhu ka socday Abu Musa al-Ash'ari meel dhaxal isku yimid waa la dooday waa la tashtay xitaa kafta badan baa saddex baragi shakada way dheeray markii dambe waxaa lagu heshiiyay in maartay ciidanka la kala qaado dib loo kala baxo oo aan isku dhicin heshiiskii markii muslimiinta balfiiriya nimankii fidnawadayaasha ama khawaarijta ma rabaan heshiis ma rabaan wanaag ma rabaan muslimiinta inay midoobaan isla markii la soo kala laabtay oo cali uu soo galay magaalada maartay Madiina ku soo noqday iyo Kuufa ku soo laabtay oo khayrkii iyo meeshaas uu ka sii wada khayrkiisii uu iska soo laabtay ayay magaalada Madiina inta imaadeen ay waxay bilaabeen fawdo iyo dood cali waxa uu ka daba tagay markii xaqiiqatan markaas way fiicnaayeen oo waa roonaayeen doodda cali wax badan buu ka dhacay way soo laabtay markay soo laabteen Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu nin saxaabada kamid ahaa oo rag soo galgal jira cali u dhawaa ya waras suuqa ka soo maqan waxaan maqluu yiri cali suuqa waxa kugu jirto hadal ah in nimankii khawaarijta ahaa ay dhaheen cali uu toobad keeno Mucaawiya wuxuu la galay iyo waxa soo dhan iyo ridadu ka soo laabtay saa aawadeed ayaa ku soo laaban fikirkaas suuqa kugu jireen ma la socotaa cali wuxuu ku noqotay wax qariib ah wuxuu safilay ruuxaas kula beeshiiday wakaan wixii markaa jiray ee khayrkii baa ka dhaadhiciyay ayuu yiri cali markaa radiyallahu ta'ala anhu waxa uu sameeyay khudbo weyn ayuu masaajidka jeediyay masaajidkana 80% ama 70% nimanka u badan waa nimankii khayr laawayaasha u badan markuu khudbeynay ay dhagaha faraha shaqaarkood il hukmu illa lillah il hukmu illa iyo sawaxan iyo qaylo iyo afar daafood imsaadka bilaabeen ayakoo leh in الحكم إلا لله ولقد أوحي إليكم الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين قرآن وين نمك قراوي حقيقة سديتكم بأي ممكن دم ممكن نقول دونان نمك قرآن معان نمك قرآن أخذ بدل مجرم نمك سفوين عجيب له هو حتى عبادة والله بقول لك شكرين لكن أنتم منافسون كالحما منافسون وركودوا معان قرآن وحنا هيك كل دقائق واسفويك نمك لو يقانو dadka ay ku qaldamaan ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu umada ka qabto markaas ilaahay inta ku jirtan ka soo saaro waayo qofna uma jecel naarta ilaahay subhanahu wa ta'ala nooga baxsado saka sabaati walaalayaal Ali ibn Abi Talib nimankii buuqa badiyeen way yaraayeen marka hore way dhuunteen wayna carreen way baxsadeen way is aruuseen waxay noqdeen marka 80 kun bay waxa marka dambe isku tageen meel waxay isku aruuseen leedaan xaruura la yiraahdo aad bayna maarta u farabateen Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ayuu u diray nabi Ali ibn Talib radiyallahu ta'ala su'aalo doodo waxa wada dhacay marka hore riwaayad qaar xilin way soo ciriyeen marka dab waxay dhahan waxa u tagay Ali ibn Talib radiyallahu ta'ala an qaar waxay dhahan way si gooni u sheegay nimanka saddex qodob ay kaga dhigtay marka saddex qodob ay kaga dhigtay horta waxay dhaheen Amir al-Mu'minin Ali ibn Talib radiyallahu ta'ala anhu uu qalday wuxuu ku qalday koo waxay dhaheen Ilaahay subhanahu wa ta'ala qamiiska uu galiyay iyo hogaanka uu dhibay oo umada ugu talgalay uu iska siibay waa koo
oo muxuu iskaga siibay waxay dhahay markuu heshiiska la galayay mucaawiya magaciisii ahaa amiir almu'miniin cali bin abi taalib radia allahu tacaala canhu inuu ku qoro ilaa mucaawiya kubuusa qorana cali bin abi taalib uu ku qoray mucaawiyana wuu ku qoray haye waa qodob xagga inoo dhiga qodobka labaadna muxuu yahay waxay dhaheen qodobka labaad aynu ku haysana waxaa weeye markii duulaan dhaco laba ciidan oo muslimiinta ayaga iska dhaya muslimiin ay yihiin markuu duulaan dhaco oo muslimiinta duulaan qaadaan haniimooyinka ay soo qaataan xalaal bay u tahay waxay dhahen waqacatu jamal markii aan isku duullay ee uu dagaalka dhex maray annakii nimankaas hee ayaga waxay weysaa dad ridoobay saxaabada ka wadaan subxana allah alcadiim saxaabada ilahi way ridoobaan waa kuwa ayaga islaamka ugu yeeray cajiib dadka bal meesha si loo kala fogaado fiir walaalayaal marka haniimooyinkaas inaan cunno ahayd muusan maarata nasiirin inaan qaybsanno ahayd taasna uu ku qaldamay hadduu u arka dagaalka inuu qalad yahayna muxuu u qaado hadalla maara sarbeeba qalloocan bay yaqaanaan qodobka saddexaad oo ku haysana wuxuu yahay xukunkii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka leexdayo in alxukmu ilaa lilah weeyo meeshii la rabay inuu kitaabka ilaahay iyo wax u laabto talada wuxuu u dhiibay laba nin waxay ka wadaa raggii ninkii ka socda camr bn caas iyo mucaawiya wax ka camr bn caas iyo abu muusa alashcari labadaas inuu talada ka qaato oo fikirkooda raadiyo wax laga xumaado wey marka cali bin abi taalib radia allahu tacaala canhu ama daatana cabdullahi bin camr bn caas cabdullahi bin cabaas daarta dheh labadaas midkoodba mid baa la dooday waxa uu yidhi marka saddexda qodob waa laga qanciyay kow kelimadaan ah waxaa iska siibtay qamiiskii inagaystu yiri horta anuu qamiis iskama siiba buu yiri horta tusaalaan iskarayaa buu iska cad xudaybiya waxaad garanaysaan suhayl ninka la yidhaahdo oo dhinaca quraysh ka soo jeeday iyo nebi maxamed oo weliba cali uu ahaa kaatibkii markaas wax qorayay waxa ay sheegeen annaku nebinimana kuuma aqoonsanin waxaasoo dhan ka tirtir bismi illaahi maaragtay waxa aad meesha kugu qoran qodobada meesha kugu qoranna inaad magaca uu ku qoraado raali kama dhihin bas maxaa dhacay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulka ilaah yahay waxaa ku qortaa muxamed kaliya lid muxamed xataa waxaa meesha waxaa layidhi subxana allah alcadiim cali imaamkiisa aad buu sarreeyay wallahi alcadiim waa meeshu xitaa cali bin abi taalib radi allahu tacaala canhu markii warqadda uu qoray uu yidhi ka tirtir meesha ay ku leeyahy ka tirtir markaasuu yaa rasuul allah wallahi wuxuu yidhi gacanteeda kuma dhacdo yidhi ilaa nebi maxamed gacanteeda ku tiro ee adiga tiro kaale gacantaa ku tiro nabiga gacantiisa soo qaatay tus nabiga waxaa leeyahy maa kaana waxba qori jirin umi buu ahaa waxna ma akhriyo waxna ma qoro waxayna u tahay xikmad waxay ahayd rabbaaniya khayr bayna u ahayd nabiga alayhi salatu wasalaam waxaa laga yaaba qofka inuu isweydiiyo nabiga salawaatullahi wasalaamu caleyh suu umi u ahaa haddii waxaa la yidhi uu qoraal iyo akhrin lahaa waxayna ninka waxa uu soo qorqortay iyo laakiin wamaa yantiqu can alhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa wama huwa biqowli shaacir qaliilan ma tu'minuun walaa biqowli kaahin qaliilan ma tatadakaruun aw ma tadakaruun sidaa daraaddeed nabiga calayhi salaatu wasalaam magaciisa wuu tirtiray xataa heshiiska meesha ugu dambeeyey oo uu nabiga calayhi salaam la gelayay waxa uu yidhi ninkii suhayl ahaa haddaaba aaminsanahay inaad tahay nebi doodaba intaba gaarteen ee tirtir intiba nabiga calayhi salaatu wasalaam waa uu tirtiray asagoo u daranayo muslimiinta asagoo u daranaya asagoo qiimeynaya heshiiska asagoo qiimeynaya maslaxadda caamka ah xataa marka dambe waxaa la wiilkiisii oo markaas la haystay oo muslimiinta dhinacu soo gala haligu soo celiyu yidhi aduse kastaba ahaatee wuxuu yidhi taas dee nabigaa sameeyey laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana nabi maxamedna ku dayashaa nooga furan buu yidhi marka xaggee aan ku qaldamay taas waa qodobkaas qodobka labaad ee aada leedihiin hariiba billaahi calaykum waa wax laga xumaado qofka dareenka iyo damiir kalena wuxuu ku dhiiradamaa waxaad leedihiin buu yidhi ummuna caaisha iyaad rabtaan buu yidhi inay haniimo u qaataan ilahi waa sooma dhihin buu yidhi annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaaju ummahaatuhum wa ul arxaami aayaddii buu ku dul akhriya qur-aanki xaggee qur-aanka aad daldalaysaan oo halka ad in dhaafsanayn asaga kolley ma lehe saas ma dhahaye qur-aanka aad daldalaysaan oo khayrka ah biyaadan ka dhex arkeynin buu yidhi weli waxaa la sheegaa hadda soo iloobay markii uu la doodayay kitaabka qur-aanka meesha saarnaa markaasuu dhurbax kursaalisis yidhi qur-aanka wuxuu yidhi qur-aanow hadal war hadal qur-aanow markaasay dheheen ya maxaa kuu dhacay
caliyow hee suu qur-aan ku hadlayaa wuxuu yidhi dee kan baa una kala bixin kara u yidhi marka wuxuu yidhi qur-aanka ku qoran tahay see haddaad dee arrintaas qaadataan oo umuna Caaisha radiyallahu ta'ala aad u aragtaan inay la qaribaysan karo oo nin iska kaxaysan karane dee u gaalowaysaa buu yidhi taasna meel buu ka saaray qodobka saddexaad ee adigu haysataan ee aad leedihiin xukunkii in alxukmu ilaa lilah aad ku celcelinaysaan warso ilaahay ma dhihin buu yidhi haddii laba waa nin inaag isqabo hadday isqabtaan xakaman min ahli iyo wa xakaman min ahliha ina laba qof loo kala doono billaahi calaykum wuxuu yidhi caqligiina wuxuu tusay dad muslimiin dhiigga isku dhammaanayo iyo in loo fiiriyo naag in isqabo oo guri hal guri wada degan ilahay inuu qur-aan ku sheego uu yidhahdo xakama min ahliha iyo xakama min ahlihi mid ka socda gabadha ehelkeeda hala keeno iyo midii ka socdo inuu ilaahay magacaabo iyo yaa kaga mudan buu yidhi middaan aduu si kastaba ahaatee garti meeshaa looga helay kuwii ilaahay khayrka la dooday isla markiiba waa qaateen markiiba waa qaateen laakiin qofku ilahay khayr la doono ma hanuunsamo waman yudlil lahu falaa haadiya lah qofku ilahay dhoomi cid hanuun karta male kuwii cuquubada iyo kaarta qabay way is adkeeyeen intuu ilahay iimaanka la doonayna way maaragtay soo laabteen wey markii uu cumar ka soo cali bin abi radiyallahu ta'ala anhu soo laabtay haddana nimankii buuqoodii abatay wuxuu yidhi wallahi hadda tilaabada ma qaada iska jira waxaa la yidhaahdaa oo la sheegaa cabdullahi ibn cabbaas radiyallahu ta'ala canhuma in ama ibn cabbaas radiyallahu ta'ala canhuma inuu maaragtay ay dooda markuu la doodayay ay su-aal dhowra weydiiyeen ay dhaheen adigu cuthmaan maxaa ka aaminsanta markaasuu cuthmaan soo maaha waa din nuurayn ahlu janna wey cali sidoo kale kaalay dhaheen meel webi jiidkiisay geeyeen qoorta u dheereeyeen waxaa kaloo la sheegaa inay dileen khabaab ibn arad iyo xaaskiisa subxaana allahi alcadiim waa ninkii ilahay darti loo cadaabi jiray waa ragga diinta usoo jabhaday ee usoo maarata dhibaatooday xaaskana waxaa la eeda weliba xaamile ayay warag galiyeen baa layidhi si way dooxeen subxana allahi alcadiim cid u dirnaxayeen male saxaabada ridwanullahi calayhim oo ayakaba sabab ah inay islaamka soo galaan ayay dilayeen marka cali marka go-aan buu gaaray radia allahu tacala canhu inuu la dagaalamo macrakaleeda nahrawaan ayaa dhacday markay ahayd hijriyadu 38 baabah baa looga dhigo meesha lagu dhamay nimankii aada loogu laayay oo aqlabiyadooda iyo cududooda iyo tiradoodaba ay ku tirmeen ilahay baana taas ku mahadsan si fiican buuna cali maarata yeelay markii ay nimanka baaba-een koox yar baa ka soo harta oo firxade kuwii soo baxaa marka tashtaaliyay oo dhudhumasho ah waxay dhaheen maxaa talaa raggi waa naga lahay markaas waxay dhaheen wallaahi raggii nahra waan ku dhammaaday in loo aarame ahe si kale ma jirto way shireen 3 nin bay adigu isku kala qaybiyeen nin wuxuu yidhi mucaawiya ayaan igu faatixay anaa soo dilay mid kalena wuxuu yidhi ani igu daaya camr ibn caas kii kalena wuxuu yidhi ani igu daaya cali bin abi taalib radia allahu tacala canhu anaa usoo xiraya oo soo dilay wey sarbeebtaas markuu magaalada madiina soo galay midkii cali inuu dirin waxaa la yidhahdaa baan yidhi cabdiraxmaan ibnu biljam ayaa la yidhaahdaa magacaas magacyo kale waa lagu sheegay si kastaba ahaatee ninkaas ayaa soo baxay wuxuu yimi magaalada madiina iyadoo cid ogsoon aysan jirin wuxuu la kulmay gabar qurux badan aad iyo aad u qurux badnayd oo magaalada joogtay ay meesha kooda kulmeen asagana ujeed buu lahaa gabadh nafkeeda khaarijad bay ahayd mid khawaarijta ka mid ahayd markaasuu yidhi inaan guursana gabadha marka ganacsi meesha kule waxaa la sheegaa guur iyo waxaasaa dhex maray inuu ay ka wada sheekaysteen gabadhii waxay tidhi anigu ninka i guursa way gabadhi waxaa lay aabaheed iyo walaalkeed iyo adeerkeed miya si kastaba dad familkeeda ugu dhawaa ee macrakadii nahrawaan lagu laayay oo aad bay u caraysan tahay marka waxay tiri gabadhaas haddaad doonaysid inaad i guursatid waxaan tiri lacag badan bay ku xirtaa lir lacagtii inuu bixiyana wuu ballan qaaday waxay kaloo ku xirtay gabadhii in uu soo dilo amiir almu'miniin cali bin abi talib radia allahu tacala canhu intuu qaslo wuxuu yidhi waxaad moodaa inaan isku qalbi nahay waxa keliya u jooga magaalada madiina wax kalama hu yidhi inaan ninka usoo dhammeeyo ayaan u joogaa gabadh aad bay u farxday martaas ahaa lacagtina way ka qaadatay waxay ku heshiiyeen waxay tiri markaas soo dishidna anna waxay tiri waxaan ku ahay maaragtay xaaskan ku noqonaya fitnada inta badan ay dumarka kiciyaan
أدبوا أدبوا دبادك وحيكون يردين إن الدلان أما نيكا وكل يردين لأن إلهي سبحانه وتعالى الرسول كيسا وجعليه نيكا فضلك عن صوشك لنا أول بق فضلك له وقبل النبي عليه الصلاة والسلام قبل قبل سنة قبل ما سيد أيتها أتهاي نساء العالمين أتهاي عرورتي سلامة العلو أدو جعل النبي عليه الصلاة والسلام نيك النبي نادر كيسها نيك أهل النبي عليه الصلاة البيت كملها نيك كاسولية هاي وكل جنة تجي أما أصعدها وحالي نروح على الشجع إنه أصعد قبضي صلاة الصبح مجرين استغفر ربنا أن بعد ما صعد صلاة الصبح أصعد إنك السعاد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه النبي قصي باقي واللي ودي دونا واللي هكذا دقر لعان نفطه دقر أنت كصبحه قرك ودي قصك حردونا markuu uu sugu jiray sharwadaha ama bacowga halka iga dhafan doona waa kee ma la gaar waqtiga soo rijaaliin waa soo baxay bartu nabi kaleey salaatu salaam sheegay ayuu nabarka ugu dhuftay dhiig baan ka soo daatay beesh waarta walaalayaal ay ku dileen khawaarijtii ninkaasna uu sabab ahaa gacantiisa billahi alaykum waliba ninkaas waa uu soo gabanayo kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala waa uu soo gabanayo quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay cali waa ku jira tagaya cali iyo asagana علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أسوأ الدوك جوا يمشي على وجه الأرض نقول كل شيء كسعد النبي قال جنأ بلغان النبي قال أهد وجعله نكاس ما تلدلي واحد دلي لمن سفهاء لمن علم الهين لمن إله أخورين مرك إن شاء الله تعالى صفات حب إليهم صفات كودنا وقت الجول أنا سينك في عالم لكن وحن إسامح الوقت يبرنامج آدي أو كومن أنا أوتر قال لي بشام بركيسن رمضان كيا إلى سكوح السنة كريه توش نكون في إنه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يمركله وقوض كل مدونه أنت يمركله وقوض كل مدونه برنامج كان برنامج لمده هذا وحصلنا مني أفرت الخلفاء الراشدين المهديين وحين قردونا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قوض كله وإله سبحانه وتعالى مركز ونوكرسيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب هم ناصروا المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسان